بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعبد الفتاح حسين محمود maamulaha guud ee iskuulada adalti waxaan ku faraxsanahay marka ugu horeysa isla markaana aan bogaadinayaa dadaalka iyo juhdiga ay ku bixinayaan horumarinta waxbarashada gobolka Banaadir agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir marka xigta waxaan ku faraxsanahay inaan iska diiwaan gelinay tartanka kubadda cagta dugsiyada gobolka Banaadir oo ay soo agaasimeen agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir sanadka 2022 waxaan runtii bogaadinayaa dhiirigelintan oo aan u arko maanta in iskuuladii ardayda dhiganaysa qayb gobolka Banaadir ay isku dhaxgali karaan isla markaana tusaale wanaagsan u yahay maadaama manhajka ay ku jirto maadada physical education-ka in la dabaqay maadadii oo ardayda isdhaxgalkii tartankuna mar walba uu yahay isdhaxgal waxaan ku faraxsanahay runtii dadaalkaas iyo juhdigaas agaasinka u wado iskuulka adalti sidan ismida 2013 sanad dartan loo qabtay iskuulada gobolka Banaadir 125 dugsi sare ayuu kaalinta koowaad galay waxaan rajaynaynaa sanadkan mar kale inaan wacdar ku soo bandhigi doono haddii Allah wada leedmo agaasinka waxbarashada waxaan leenahay dadaal wanaagsan baa wadaan waxaan idin rajaynayaa guul waan u baahanahay tartamadan inay noqdaan joogto sanad walba mar la qabto insha Allah ma santiin magacaygu waa Qadar Axmed Yaquub waxaan ahay maamulaha dugsiga SYL faraciisa Digfeer waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta dugsiyada SYL 8 farac aan uga qayb galno tartanka agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir wado midda koowaad waa bogaadinaynaa waa dhiirigelinaynaa dadaalka iyo isku dayga iyo horumarka ay maanta tacliinta ay gaarsiin agaasinka waxbarashada maadadan waana ku faraxsanahay maadadan PE laha mase physical education in la dabaqo xiisadihii fasalada lagu qaadanay theory ahayn in practice loo bedelo aad iyo aad ugu faraxsanahay waa horumarka iyo dadaalada iyo isdhaxgalka ay agaasinka waxbarashada ka shaqeynayaan maadada maadooyinka manhajka lagu dhigto maada kamid ah waaye in la dabaqa loo baahan yahay agaasinka ku dhiirigelinayna